بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هدان قصة اسكا قرو وحبا سو سعودا إماراتك oo baraha bulshada ka dagaalamaya baashi khatarta la isaga dhigay dawladan inqilaab inta ciidan gay kuwa abuur baraha bulshada ay taagan yihiin imaaraadka wasiirkooda arrimaha dibadda baraha bulshada taagan yahay mas'uuliyiintooda baraha bulshada taagan yihiin hadda waxa la dhihi karaa leeyahay macna anaga ayaga isku mid ah noqon ahmal ajeeb arintaas ay soo taagi doonaa iyo waxa ay baraha bulshada taagan yihiin israa'iiliinta oo cabaadaya wallahi waa aduun ajeeb wariyaashi waaweynaa idaacadihi waxay leeyihiin say macquul ku tahay 100 kilogram bambooyin ah Iiraan inay nagu soo tuurto oo dhismooyin dhan hal mar sida u burburaan oo dadkii oo waliba dhulka hoostiisa ku jira ilaan ogow dhismayaasha qaarkood ma dhismayaal badan waliba kuwii ugu dambeeyay waxa waajib ah oo laazim ah Israa'iil siyaasadeeda ay qaadatay kamidka ahaa dhismo walba la dhiso sida biyaha waajib u tahay in macnaha loo geliyo korontada ay waajib u tahay in loo geliyo ayaa waxa waajib ah dhismahaas inuu leeyahay gabaad dhulka hoostiisa waa in laga dhigaa meel weyn oo inta dhismahaasi degan midaan konton qoys oo kala degan konton ka qoys meel qaada oo dhulka hoostiisa ah oo gabaad ay ka dhigtaan waa in laga sameeyaa yaani waa waajib boqolkiiba boqol waxay la mid tahay waxyaalaha essential ka ah oo lagama maarmaanka ah sida biyaha oo kale iyo korontada oo kale ay la mid tahay marka waxa dhacay dhismayaasha qaar ee hadda la burburiyay oo waliba uu ku tilmaamayo wariyahan macnaha wuxuu ku tilmaamayaa oo Israa'iili siyaasi oo mar sidaas oo kale ahaa oo Hananiya Naftali saddex dhismo yiri oo waaweyn ayaa hal mar dhulka tagay mid kale wuxuu leeyahay dhismayaasha qaar hoostooda uma tira badan oo sodomeeye ah ayaa ku jirtay dhismihii uu soo dumay dadkii dhismihiisa uu dumay wax akhbaar laga ma haayo qaar waxa uu leeyahay sida save oo kale waa macnaha meesha midaan lacagta la galiye ee lagu xiro marka la xiro waad garanaysaa wax walba lagu dhufto kada yaani gudaha wax ku jira ma saameynayo marka qaar sidaas u dhisan yihiin oo dadkan cuntadoodana way haystaan biyahoodana way haystaan xataa haday isbuuc ku sii jiraan waa normal oo dhismahan ku soo dumay ayaa laga qaadi doonaa ciidii dhagaxaantii iyo burburkii birihii bas waan la soo badbaadin karaa sida uu leeyahay waa sidaas laakiin wuxuu leeyahay qaar kamid ah dhismooyinkan waa dhismayaashii hore macnaheedu dhismahan weyn haduu dumo culeyskaasi iyo meesha dhulka hoostiisa ka qodan ee ummadda ay ku jirto ma qaadi karo ma xambaari karo sida darteeda dhismayaasha qaar waxa laga baqlin qaba laga cabsanayaa soo dumida uu soo dumay oo saaruq ku dhacay iyo meeshii dadka ay ku jireen in hal mar hog isku dhaho oo ummad badan ay meesha ku dhimato oo familada waliba gram oo sawaariikh macnaha madaxya wata inay Iiraan sida ugu qaybiso wuxuu ku tilmaamayaa waa escalation يعني dagaalkii oo si la sii horinayo wuxuuna dhahayaa macnaha dangerous escalation waliba yani mid aad halis u ah oo arintan keeni karta Israa'iil inay ka fakarto waxyaalo kale inay sameeyso maxay sameynaysaa u fiirso shalato idaacadaha reer galbeedka qaar kamid ah iyo daraadba wax bay warinayeen maanta hadda waxa uu ku tilmaamay Israa'iil inay wax kale isticmaasho kuwa shalab iyo daraad maxay dhahayeen haddii Israa'iil intay carooto ay Iiraan ku dhufato nuclear maxaa sameynaysan Iiraaniyiin waxa la weydiinayaa professor Mohammed Marandi oo Iiraaniga ah wuxuu yiri bas su'aashaas aad i weydiinaysay ah in Israa'iil iyo Mareykanka intay caroodaan waliba Mareykan lagu daray inay intay caroodaan kadibna nuclear isticmaalaan kaliya su'aasha waxay ku tusaysaa oo leeyahay in reer galbeed hadda tihiin dawladahaasi inaad u qiraysan inay yihiin dawlado bahalla ah oo isxakameyn karin oo dagaalka bilaabaya oo foodo socota ah intaas abcadana u filno leey macna soo ugu celinayo la yaab hadda maxaa dhacaya Israa'iil waxaan hadda ku socdo marka la fiiriyo ilaa ogo weerarkan hadda dhacay guriyaha lagu baabiinayo ee ummadaasi ama tiradaas badan dadka ay ku jiraan ma aha kii xalay kama hadlayno waxaan ka hadlaynaa kii casarkii maghribkii intuu dhaxay bas aan ka hadlaynaa waxa soo socda bacda maghrib dhici doona iyo bacda cisho waxa dhici doona haba yaraatee lama oga kaliya waxaan ka hadlaynaa hadda casarkii iyo maghribkii intuu dhaxaysay iyo xataa sidaas oo kale duurkii casarkii intuu dhaxaysay marka dhismayaal ayaa sida u burbursan okay mid kale waxay ku tilmaamayaan si inaan tan qoraya waxay leeyihiin sawaariikhda ay Iiraan soo tuurtay qaarkood waxay u eg yihiin kuwa loogu talagalay meeshan inay ku dhacaan maxaa yeelay Iiraan way haysataa oo way awoodaa sawaariikhdeeda inay aadaan meelaha military kada iyo macnaheedu waxa weeyaan meelahan ay Iiraan duqeynayso ma ahan meelo military ko
arrintan maxaa keenaya in la soo bandhigo waa intaas ma maqli jirtay iiraan meelahaasi duqaysay dhismooyin dhulka la gashay ma maqli jirtay maya maxaa inta ugu badan iiraan meelaha ay duqaynaysay waxay ahaayeen sida dabcan akhbaarta laga fahmaayo horena loo sheegay u qorneed aan u aragnay meelaha militariga iyo meelaha xasaasiga iyo marka lama soo bandhigayo laakiin meel shacab maalinta iiraan hesho ay ku dhufato adduun oo fiiriya iiraan qaladka ay sameynayso meelaha shacabka bal waxay ugu yaabka badnaa waxay ahaa daraad wasaaradda arrimaha dibadda ee Israa'iil waxay soo gelisay sawiro burbur macnaha guri dabaq ah adi guryo badan ay ahaayeen guri ka mid ah guryaha dabaqa ah marka qolal burbur ka gaaray oo toyska ilmaha alaabeyda ay ka buuxaan alaabeyda la sawira dhaxa fiir ilmaha fiir macnaha nolosha fiir Iiraan dadkii Israa'iil u galaysa dhaxa wala sawir halkaas la sawira waxa lagu soconaa hal sawir ayaa afar angal laga qabtay marna bombalayaasha halkaas u arkaysa oo saa u jeeda marba waxa dhinacaas ka soo arkaysa bombalayaasha geeska sidaas oo kale ah yaani hal sawir ayaa afar angal laga qabanaya tusaale ahaan مثلا gacanta marka inta ka aragto iyo marka inta ka aragto laba angal haysa marka inta ka aragto saddex angal haysa marka saan aragto angal kala haysa hadda saarto almuhim ka war adiga hal sawira intaas oo angal marka saan ku laabto waxaan macnaha ma hada maray bombala calaamaystay waxaan balkan sug haddaan fiiri waa dhinaca kale laga tusaa haddaan midkan fiiri waa isla isagii un marka الحوسي وحي لمدك يكون جرتها اوكي هلكاس نوغا تغينا تشكو من الخذلان العربي وتطالب الدول الاسلاميه والعربيه بالدفاع عنها ودعمها ضد ايران. في حاله ان حضرتك ما سمعتش نكته منذ بدايه الحرب فالفيديو ده عباره عن نكته لكنها حقيقيه على لسان انور قرقاش المستشار الاماراتي اللي كتب تويته من 6 ساعات تقريبا. المهم انور قرقاش واتخنا اماراتكي وحي تاغيهن عالمكي اسلامكي عالمكي عربت عاوي ولا لو محسن ugu fiirsanaysan sootaan idin gargaari jirnay sootaan annaga marka aad dhibaato dareentaan ama wax un idin ku dhacaan garabkiin ahaan jirnay haye oo goorma imaaraadka wadamada carabta iyo wadamada islaamka uu gargaari jiray wuxuu leeyahay la iskuma fiirsado waxaan hadda ku jirno marxaladan aan marayno ogow imaaraat waa zero hal shay oo socda oo dakhli aad galaya nacam dakhli hadda soo galaya waa investments kay sameeyeen ee wadamada reer galbeedka iyo shirkado badan caalamka ku leeyihiin bas laakiin ka wadanka gudihiisa imaaraadka hal shilin oo ziyaada ma soo galayo dhaqaalihii bilyanada ahaa ee maalintii soo xaroon jiray ay sankasa ugu taagi jireen kib zero waxay taageeyeen annaga ban eedeynaan leeyahay wadamada islaamka iyo wadamada carabta maxaa ugu fiirsanaysaan ma sidaan isku ogeen walaalayaal aawe macnaha yani tolnimadii iyo qaraabanimadii saasi taageeyeen mid kale daraad waxa dhacay wasiirka arrimaha dibadda ee imaaraadka ayaa wuxuu qoray hal mar kan aan dhinaca aadiya okay hadalka u fiirso ووزيركي أرمها دبد إماراتك تويتر وتاغيني وحو جابايا سفير هوري ومرايكن وفرين جري maxaan ku dhahay Faransiiska waa safiir Faransiis awayaan safiirka waxa soo qoray waxa la yaab ah in intaasi wadan dhan oo isugu dhiibo wadan kale inuu difaaco waa kaas hadda isu dhiibta Mareykanka iyo aaminada aaminteen waxaas idin dhaxal siisay in maanta la idin ka daneysay la idin difaacinin xaaladaas aad ku jirtaan in noloshiina ay halis ku jirto waxa soo booday wasiirka arrimaha dibadda ee maxaan ku dhahay imaaraadka wuxuu leeyahay we will never be blackmailed by terrorists yani ma anaga argagixiso macnaha mise sida kale hadaan dhigo sida fasirada rasmiga tahay argagixiso weligeeda rakaatan ugu ma haysanayso ama ugu ma haysan karto yani wuxuu argagixiso ku tilmaamayaa safiirkii hore ee Faransiiska ee Mareykanka u fadhin jiray ayaa wuxuu leeyahay argagixisaatihiin annagana hadaas aad leedihiin waa ognahay rakaatada rabta inaan ugu haysataan kada ay wixii la midka dadka falanqeynta ka bixinaya hadalkan imaaraadka ee saraakiishoodii macnaha mas'uuliyiintoodii wasiirkii oo dhan oo Twitterka iyo baraha bulshada taagan waxay ku tilmaameen xaaladda siyaasadeed iyo xaaladda macnaha maskixiyan ee dawladda imaaraadka ay marayso macnaha ma sidaan u jilicsanayeen u fiirso waxay ku dadaaleen ayaga dhaqaale inay sameeyaan kaliya wax kale oo dhan ma inuu ku tashan دفاع كما إن تشن عندما الإسلام كما تشن هذا تصالحان إيران معناها إيران يعني هنا إسرائيل وهي يرتاح هذا يرتاح لكن وحي كنت شتي دخل كلمة هنا وحي سميستي ورقي ودفاعي أديك المهم وأتقرنيسها إمارات كمركب وح فلانقيت أديتها أودي وين أيوة أنت هالعقله إني سميان دفاعي ما حي عيدا مو إني أبود أيشان ويسمين كرين حدا وح ما كبران دونان وسؤال وaba hadii ay sida fudud ay ku soo laabtaan waba hadii dagaalka oo normal in nabad ay uga baxaan maxay dagaalka ugu ila hadda tabciid ugu malahan Iiraan kaliya weeyaan cidda dagaalkan istaajin karta oo galaan karta maxay Mareykanku isku daysi kasto
dhambaalo soo diray walaalayaal war yani iiraanay aan wada hadalno kada iiraan halkaas taagto waxay leedahay ciidamadii inaad ka saartaan bariga dhexe inaad magdhowna siisaan inaad ragaalageli bicisaan war yaa isku taaban jiray waxaan meeshaasay xaaladda maraysaa imaaraadkii marka maanta halkaasuu ka qaylinaya adduun ilaahay markiisa ka war adduun xaal qaada soo ma